soo dhawaada dhalinyaro warankan aqda ku custahay aad kaaga codsanayna kana subscribe saartid haddaad hore noola joogtana like saartisiina share garaysid maanta maalin ciyaareed waay meeshan waxaan kugu diyaariyey 3 shaxood mid kamid ay tahay 1249 oo dhis hadda $30 kaliya dhigtay waxaana ku helayaa $37,000 that's why risk dabcan waan falanqay doonaa sidoo kale meeshan waxaan kugu diyaariyey shaxto oo dhisa dabcan $410 dhigtay lacagta dhigtan ka dareemi kartaa seefkaansheeda way yartahay shax lacag inta leegaan dhigto percentage-ka sidoo kale meeshan waxaan kugu diyaariyey shax 10 oo dhisa $1 dhigtid aad heli doontid $10 sidoo kale $10 dhigtid aad heli doontid $150 dhigtay $1,400 ka helaya waana falanqay doonaa maalmahan ciyaaro fara badan jiro dabcan boxing day way hadda maanta waa talaado marka ciyaaraha la ciyaaro bariya la nasanaya bari xitaa nasasho ma jirto African Cup la ciyaaraya bari damba hadana la ciyaaraya Premier League qamiis jimcaha la nasanaya sabdi isla Premier League ya soo noqonaya hal maalin kaliya laga nasanaya Premier League La Liga isagana waa la mid dhammaan marka halka qaaba uga faa'iideysan kara secret-ka ku sheega aniga xitaa shaxyaalaha ku diyaarinaya markii laga soo tago fadlan haddii aad tahay dadka jeebiyarta lacagaha yar ku soo galayo isku day shaxdan 2 oo dhiska 3 oo dhiska 4 oo dhiska 5 oo dhiska 10 oo dhiska marka hore lacagta ugu badan saaro hadda meesha waxa kugu diyaariyay 3 shaxood tusaale $2 haysta 10.3 dhigo riskiga ah dadis xogaa riski waay sababtoo 10 kooxood waay 10 koox hal kooxdi kugu leeyahay kugu dheesh marka tan dhigatid 0.3 tan dhigo ugu yaraan 0.8 ama $1 tan na dhigo 0.5 meeqa ku saartay 0.6 ku saartay 0.6 Telegram keena waxaan soo dhigayna dhigo daas $100 habeenka $10 waa la bixi $10 next night ama habeenka xigo adana $50 ku gaari doonto iskoos $2 waa ka soo $10 waa ka tagtay $50 waa ka tagtay konton mar hada gaartid jiibooyinta ku soo biiray ama $100 mar hada saan dhaaftid oo ku sahlantahay $20 waxa iska dhiganaa shax 10 oo dhisa kadib $200 ka sameynaysa dabcan steebyada soo mara dib u daaw fiidiyaashadii tabku u wareyso daaw $50 ciyaar ku dhigay jiray iyo $60 haddana $500 xataa agteeday waxay ka tahay kii dabcan darad wisdro wala sameeyay hadda wisdro wala sameeyay inaan wii qaata rajayna xal laba loo saay gashay maanta kan baa kana sameeyay rajayna bari fiidiyoga dambe duubayo anigoo lacag la baxay inaan soo duubo insha Allah okay shaxdan to risk waay 0.3 ilaa $1 dhigo hada sidoo kale jiibooyinta $30 ka badan ha dhiganin dabcan koodkeeda waa kaasa waa 4K TH6 way haysataan waa 1240 dabcan laba kooxood waxa ku jira bari soo galay ilaa 3 kooxood kooxdan Algeria kale bari soo galaysa sidoo kale Africa Coast bari soo galaysa Cameroon bari soo galaysa laakiin inta kale maanta soo galayaan shaxdan 2 oo dhiskiga qabsada Senegal bis ka shaksanahay inta kale hal kulan caawani sheega kulankan Arsenal iyo Aston Villa farax laga qaado hada u dhigi karto corners iyo shoot on target iyo waxyaabaha u dhigi karto u dhigo laakiin kulanka farax laga qaado Arsenal badini Aston Villa badini buuqays galina lacagtaada kaaga digaya sakood baasalahay kulan kale farax inaan ka qaado ay ku fiican tahay jiro horta 3 kulan gool way ka soo baxayaan 3 kulan farax inaan ka qaado ku fiican kulanka koowaad ee aan isleeyahay caawa la isboobsiinaa waa la isku firdhinaa isleeyahay waa Newcastle iyo Burnley waxa badan akhristaan Newcastle iyo Burnley dahal waa kulanka labaad ee ay tahay inaad goolal ka fiirsatid waa West Ham iyo Brighton kulanka saddexaad ee ay tahay goolal ka fiirsatid waa Wolves iyo Manchester United maalmahan waa ka codsantahay saddexda kulan ay tahay inaad ka fiirsatid dhigashadooda waa Arsenal Chelsea حتى معقول Chelsea gool wala isku firin kara laakiin Everton goolayo luqafa u jooga wada ogtiin waa difaac koox difaac waay Nottingham way ka darantahay Aston Villa Arsenal way kala daranyiin marka ani Aston Villa waxaan u doortay 7 koon 8 koon ka soo baxayso easy waay 8 koon waa ku tashanay oo dhiska saarxta u yariya United iyo Wolves waxaan u doortay 2 gool ka soo baxay Chelsea iyo Kane waxaan u doortay Chelsea oo hal half time badanayso kulanka ugu cabsida badan ka shakisana waa Senegal iyana waa qaatay riskiga waa qaatay dabcan hada ku qasaar $400 waa arki doona hada ku faa'iidana waa saar rabay
dabcan kodkeeda iyana waa kawa iga heesaan insha Allah waxaan rajeynaa berida markaan fiidiyowga duubayaan oo weyn indhaha inaan soo duubo adigana aad ka faa'iidaysteed sidoo kale shaxdan kale 10 oo dhis waay iyana si fiican u falaaqay dabcan si deganaan ugu soo fikiray kodkeeda iyana waa iga qabsanaysaa waa kan waa MATH6 dabcan heeriyota baxay noocooda 3 shax ka soo dhig shaxyaalaha noo kordhinayo waa nagu dhigantaa maalmahan waa kawa iga heeseen laakiin adinkana like-ta fiidiyowga ha lagu boobo dabcan waa ina ka dareema like-ta sidoo kale channelkeena cusub fadlan subscribe saara channelkeena weynka wuxuu qarq u saaraya inuu mar dhawa wada ka baxo sababtoo waa ujeedaan video kasto waa laga dhigoyaa hadda videogan just waa ujeeda remove lagu sameeyay waa laga saaray dadis hal qalad oo kala hadoo YouTube kan ka dhaco ama copyright kala wala qabto waanu automatically waa isxiri doonaa dabcan violation ay inta badan nooga dhaco marka aad waxaan idinka codsanayaa channelkeena cusub Somali Sports Family inaad degdeg 2,000 oo subscribers u gaarsan aad u mahadcelinaa dhalinyarada qaar 700 800 ku sii dhadhawiyay inaad 2,000 ku tuurtaan dabcan commentigana waa ni soo dhigayaa qaybta subscribe markaa tabatini asla asigii wuu ku soo baxaya guuleysta saaxiibayaal aad aan idinku mahadcelinayaa